run ahaantii shirkani wuxuu ahaa mid aad ahmiyad weyn ugu fadhiya Soomaaliya khaasatan markii ay dareemeen midnimadeedii iyo qarannimadeedii inay halis gashay kabacdina u dhaqaaqday sidii diblomaasiyad ahaan waddankeeda ay ku ilaashan lahayd iyo haddii ay noqotaba xitaa xagga iyo militariga marka Masar iyo Soomaaliyana sidaad og tahay waa dad waqti hore yacni saaxiibo soo ahaa ma aha mid heshiis maanta u bilaabaya laakiin waa mid istaraatiiji oo weligood soo jiri jiray marka Soomaaliya marka ay hadda dareentay in khatar weyn ay ka soo food saartay dhinaca Ethiopia oo dawlad muddo badan soo jirtay Soomaaliyana ay noqotay waddan hadda la tacaalaya shabaab iyo inuu ka soo kabanayo civil war qarannimadeedina halis gashay oo gobol kamid ah heshiis intay la gashay ay leedahay bad iyo waxaan samaysanaynaa deked iyo xero military oo aan badda ku samaysanayno ayaa Soomaaliya waxay sabab u noqotay in madaxweynaha uu sameeyo socdaal siyaasadeed oo shiro badan uu ka qayb galay haddana ugu dambeyn xiriir yacni ilaalinta badaha iyo dhulka Soomaaliyeed uu la soo galay Masar hadallada madaxweyne Sisi waxaa laga dheehan karay inay ahaayeen kuwo aad u kulkulul ama erayo kulul uu isticmaalayay ma la dhihi karaa xaaladda ay uga sii daraysaa run ahaantii xaaladdu markii horeba way kacsaneed sababtoo ah haddii qaran deriskaaga uu sovereignty-gaaga ama qarannimadaada iyo midnimadaada uu halis geliyo dabcan waa in qolo kale oo aad isleedahay qarannimadaada iyo sharaftaada iyo karaamadaada ay kula ilaalin karaan oo awood ahaan aad isleedahay qoladii kaa caawinaysa waxay doontaba ahaatay laakiin waxbaan qarsanayn oo la ogyahay Masar iyo Ethiopia in arrimo ka dhaxeeya Nile-ka ah oo biyaha Nile-ka yani wax badan la isku haysto oo ilaa Masar gaara marka weligoodba saaxiib ma noqon laakiin Soomaaliya iyo Masar waxay noqdeen laba dawladood oo hal cadow wada yeeshay markaad eegto sida hadda Ethiopia ay u dhaqaaqdo dabcan wuxuu noqday in cid walba oo Soomaaliya ay ka garabsan karto inay la kaashato oo Masarna ayba tahay dawlad yani maanta awood fiican leh oo ilaa iyo bal Soomaaliya inta xuduudeeda military ay ka dhisanayso badeeda iyo barigeeda u ilaalin karta hadiiba ay noqoto in Ethiopia inta hadda ay taagan tahay afka ay action u bedesho ciidan iyo maraakiib iyo ay soo dhigato biyaha Soomaaliya dhulka Soomaaliya mideeda kale waxa jira jaamacadda Carabta qodobo u qoranaa jira oo waliba qodobka shanaad inuu aan filayo dhigaayo hadii lagu soo duulo dawlad kamid ah jaamacadda Carabta waa in dhammaan si wada jira loo difaaca qodobka iyagoo adeegsanayana dabcan waxay fasax u siinaysaa in Soomaaliya difaacdo waxayna qasab ka dhigaysaa waliba in dawladdaasi lagu soo duulay jaamacadda Carabta kamid in la difaaco marka Masar xadgudub ma sameyn waayo waa dawlad qadiim waqti hore ay saaxiib ahaayeen iyo iyadoo haysto qodob haddaba siinaya inay qasab ku tahay inay difaacdo dawlad Carbeed oo kamid ah jaamacadda Carabta marka waxaan filayaa Soomaaliya dariiqa ay martay inay dalkeedii deegaankeeda iyo sovereignty-geeda ku ilaashato wax khalad ah ku jira ma jiraan waxyaabaha muuqda ee haatan la dhihi karo Masar Soomaaliya way u tari kartaa maxaa ka mid noqon kara waxa ka mid noqon kara maraakiib dagaal ay leedahay Masar oo dawlad cudud leh oo maaragtay la dhayalsan kari marka inta ay Soomaaliya ka diyaar garoobayso way yeeli kartaa inay dhowr markab u soo dirto oo ay ku sii ilaaliso xeebaha Soomaaliya iyo badaha Soomaaliya iyo maaragtay marka Ethiopia laftigeeda kuma soo dhacayso hadii dawladaha qaarkood sida ay iyadu hadda isleedahay maraakiib ay France ka gadatay ayaa jira la sheegay kuwa hadday soo dhigato oo dawladda Soomaaliyana xaq ay u leedahay in baarlamaankeeda iyadaba ay fasixi karaan in loo ilaaliyo dalkooda sida Qatar oo kale markii dawladahan qaliijka ay u tashteen ay rabeen inay xoog ku maquuniyaan ay heshiis ula gashay Turkiga oo ka ilaaliyay oo ciidan iyo soo dhigtay diyaarado ay dib uga noqdeen sidoo kale dawlad walba waxay xaq u leedahay si dadkeeda iyo dalkeeda iyo sovereignty-geeda u difaacato inay cid walba u yeeran karto tiyo ay sii jirto haddana in jaamacadda Carabta aan ka mid nahay Masarna ay ku jirto jaamacadda Carabta qodob dhaqaajinayna uu jiro oo sharciyan siinaya in la difaaco dawladdaas ay Masar taas laftigeeda ay legally ay ku soo gali karto xeebaha Soomaaliya inuu ilaalin karto marka ilaa 2 sano meelaha hadii ay Soomaaliya ku diyaar garowdo ciidan badeed oo maraakiib la haday samaysato ma filayo in Ethiopia uga xoog badnaan karto Soomaaliya xaq bay u leedahay in hadii lagu soo duulay maadaama aynan u diyaarsanayn in maanta Ethiopia ay u babacdigto inay hesho saaxiibo difaaca waayahay ugu dambeyn marka si guud shirarkii dhacay iyo garab istaaga Soomaaliya ay ka helayso dalalka caalamka intooda badan ma laga yaabaa Ethiopia in go'aankeeda ay wax ka bedesho xaqiiqatan diblomaasiyad ahaan Ethiopia pressure weyn ee caalamka oo dhan ka soo food saaray hal dawlad oo maanta qaladka ay gashay yani ama hay'ad ha noqoto haddana ka soo bilaan United Nationska Arab League African Union European Union iyo dawladaha waaweyn oo Mareykanka uu kamid yahay dhammaan condemnation ay ku sameeyeen waa la cambaarayay ficilkaas ay sameysay marka hadii tani la iska indhatiro oo hay'adahaas waaweyn ay iska indhatiraan waxay noqonaysaa fowdo bilaabatay oo Afrika oo is wada qabsatay adduunka oo dhanba laakiin mideeda kale Soomaaliya waxayba ka diyaar garowday xitaa hadday Ethiopia u dhaqaaqdo militarily inay action ku sameyso oo ay maantaba heshiiskaas ay soo gashay uu kamid yahay difaaca ay Soomaaliya isku difaaci doonto qarannimadeeda